السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمها حشمة ضي كرامة مدنات بانني سلامينا وقت وناكسنيا نور في عن بانني رتشينينا يكسو دوادا كنال كينا عافيمات كي دكتورك عافيمات كغويسك يو كليب كانوا إن شاء الله إنو ما تكويقي دونو دادك قوليستا ودادا يدبها يوديقوين كاي مران أفر استابية تلابوين أي قادان oo u saamaxday inay guusha handal garayaan ama ay hantiyaan taasaynu doonaynaa inaynu isku iftiimino qof kasta aad buu jecel yahay inuu guulaysto aakhiro iyo adduunba inta badan dadku way ku wada riyoodaan arintaas waxaan filayaa qof ay maskaxiisa ay free ka tahay inaanu guul hantiin way yar tahay arintan ba hadaba inta badan dadka waxa kala reeba qaababka iyo qaabka ay wax u raadinayaan ficilada ay sameynayaan iyo wadooyinka ay marayaan ba aad u kala reeba hadaba afartan qodob dadka guulaysta waa ay sameeyaan qodobka koowaad waa schedule waxa ay leeyihiin timetable iyo qorshe maalmeed ay ku socdaan qorshe dejistaan qorshahaasu waa mid qoran oo ay marka ka dambaysa gooliska iyo targetka iyo hadafka ay leeyihiin ay doonayaan inay ku xaqiijiyaan taasi waxay u saamaxdaa hadduu qofku planning laba arrimood baa dabcan jira waxa la yahaa planning iyo implementation shayga doonayso marka koowaad waa inaad qorshaysaa markaad qorshaha dejisay iyo qaabka iyo wadada aad u maraysana waa inaad implementationkii aad abuurtaa oo aad fulisaa arrintii wixii aad ku dhaqaaqdaa haddaba dadkan inta badan guulaysta waa dad qorshayaal leh oo schedule ku socda oo timetable dejista waa tallaabada koowaad ay qaadaan dadka guulaystay iyo dadka guulaysan doonaaba qodobka way ku wada sifoobaan qodobka labaad waa financial management waxa ay runtii ay khibrad gaar ah u leeyihiin dadka guulaysta qaabka loo maareeyo ee loo maamulo dhaqaalaha dadka aynu ka hadlaynaa waliba waa dadka u guulaysta technically ama financially u guulaysta dhaqaale fiican gaadha ama markaa taajiriinta noqda xataa haddaan taajir ahayn noloshu almost management kama maaranto dhaqaale kastoo ku soo galaana inaad maamusho oo meesha saxda aad ku bixiso meesha aan lagu bixinna aad ka kantaroosho waa mid muhiima waana ta keento horumarka qofka ibni aadanka ah uu ku tallaabsado dadka guulaysta waa dabeecad ay ka siman yihiin inay leeyihiin financial management qodobka saddexaad waa time management waxay sidoo kale ay caan ku yihiin oo runtii inay waqtigooda ka faa'iidaystaan oo ay maamulaan waqtigu inay manaafacaad kala hadhaan isla markaa waqtiga sida ugu fiican ee ugu habboon ay u maamushaan oo waqtigaad ka faa'iidaysataa waa ka guusha ku gaarsiiyaa waqtigaad ka faa'iidaysataa waa ka meel fiican ku geeyaa waqtigaad ka faa'iidaysataa waa kad qeyrkaa ku dhaafto waqtigaad ka faa'iidaysataa ama si fiican u maamulataa waa kad aqoonyahan ku noqoto taajir ku noqoto ee nolosha meesha doonta aad ka gashay iyo hadafka leedahay aad ku xaqiijiso qodobkaasuna waa qodobka saddexaad ee ay ka siman yihiin guud ahaanba dadka guulaysta waa dad marka hore dadka la mid ah laakiin waxyaabaha ay ku baradhaafeen iyagu waqtiguun bay wax kala hadhaan waqtiguun bay ka faa'iidaystaan hantida dadka ilaahay isku si u siiyeyna waa waqtigaas ayaa qofna ka faa'iidaysanaya qofna markaa uu hilmaamaya oo uu hoos maraya waqtiga ayaa dadka markaa kala hormariya iyo sida loogu kala faa'iidaysto waa laga yaabaa bay'adda iyo dadka iyo waxyaabaha xataa aqoonta aad leedahay way ku caawin kartaa uun laakiin waqtigaaga sida wax ugala hadho ayaad barito meel ku maraysaa oo sahay iyo asas kuu noqonaya aad baritaan intifaacsataad u isticmaasho qodobka afraad oo wax loo yaqaano self control dhammaan nafahooda waxa ay yihiin kuwo controlling kuwa oo under controla yacnihii naftooda way xakameeyaan qaabka ay naftooda u xakameynayaan waxa weeyaan naftu waxay jeceshahay inay dhaqaalaha gubto
naftu waxay jeceshahay inaanay waqtiga waxba kala hadhin oo aan culays la saarin oo markaas aanay wax baran oo aanay waqtiga markaad wax kala hadhayso waa hawl hawshaa inay gasho naftu ma jecla ee way baalmartaa ama markaas nafta waxay ku qasbaan inay guusha gaadho guusha intaan la gaadhin waxa ka soo horeeya barriers waxa ka soo horeeya raf wada markaas aan smooth ahayn qofku isagoo iska soconaya wax ma gaadho si marka hawlahaas uu isku dubarido waa inuu self control sameeyaa yani waa inuu naftiisa ka adag yahay oo nafta uu ku tarbiyadeyn karaa wadada adag inay marto si markaas ay raaxada u gaadhay iyo macaanka iyo guusha marka koowaad aad wax bilaabayso way adagtay way qaraadhahay way culustay naftu aad bay u diidaysaa nafta waxa ku hareeraysan disappointment fara badan iyo negativity fara badan waxa qaban kari maysid inagada waa culays waa lagu waalanayaa waa maskax garaad waxaasay ku odhanaysaa all that things haddaad ka gudubto aad nafta taandhayso waad wadada dhabtaa ku rito guushana waad gaadhaysaa oo wax kastana waa qabsan kartaa meel fiican iyo qof kasta meeshu gaadhayna waad gaadhaysaa kaliya qofku inuu caafimaadkiisa ilaashado caqiidadiisa ilaashado cilmigiisa kororsado ayuunbaa sharti u ah inahaas haddii uu sameeyo nabad waa ku daayay guushana waa helayaa weliba guushaas aakhiriya adduunba waa u dhabayn karaa intaas ayaynu ku soo ururinaynaa oo kaga tegaynaa kilibkeena ku saabsanaa 4 tallaabo ay qaadaan dadka guulaysta iyo sida ay uga midho dhaliyaan guushooda fadlan la si wadaaga oo u sii sheergareeya guud ahaan bulshada aynu jecelnahay inay ku soo xidhata kanaalkeena caafimaadka iyo dhagtarka caafimaadka qoyska idinkana waxaan idin rajaynaynaa nolol wanaagsan mustaqbal ifaya iyo caafimaad taam ah. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.